kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka baar qodobada waxa qayb ka noqonaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawayo Yuusuf Raage oo go'doon ku ah baadiyaha gobolka Shabeellada Dhexe amisom oo baaraysa tacadiyada Kenya ee ka geysanayso gudaha gobolkaasi Gado iyo Hamas oo duqeyme ka geystay gudaha dalkaasi Yemen xubnihii guddiga doorashooyinka oo 34 xubnood laga saaray iyo qaar kamid ah musharaxiinta oo war ka soo saaray ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo natiijooyinka laga dhawaaqay deegaano ka tirsan gobolkaasi Somaliland doorashooyinkii ka socday ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa u diyaar garooba iyaga oo inta ka dhameystiran aynu ku bilaabnay saaxiibayaal taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya Generaal Odawayo Yuusuf Raage ayaa muddo ka badan 10 cisho waxa uu ku sugan yahay deegaano ku yaala gobolkaasi Shabeellada Dhexe oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka socday howlgal ka dhan ah al-shabaab ciidanka dawladda oo ka kala baxay degmooyinka Jowhar iyo Raagaceel ayaa al-shabaab ka qabsay deegaano badan iyadoo wixii markaasi ka dambeeyay ee al-shabaab ay wadeen abaabulo weerar ka dhan ah ciidamada dawladda sidaan ka soo xiganay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawayo Yuusuf Raage ayaa la qorsheynayay inuu soo baxo maalinkii Arbacada hase yeeshee waxaa la helay xogo sheegaya in al-shabaab ay diyaariyeen weeraro abaabulan ka soo dhacay Khamiistii toddobaadkan sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga ayaa baajiyay safar kale oo Arbacadii iyo Khamiistii ku horeeyay waxaana la sheegay in al-shabaab ay diyaariyeen dagaalamayaal gaadiid qaraxyo laga buuxiyay iyo miinooyin badan oo dhulka la geliyay waana sababta ilaa iyo hadda taliyaha uu jooga baadiyaha gobolkaasi Shabeellada Dhexe dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maalmo ka hor weeraro ka fuliyay deegaanada Warciise ee duleedka magaaladaasi Jowhar waxay ku dileen Cornel Maxamed Cabdiwaaxid Faarax oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxaana la sheegay in weerarkaasi ay la damacsanaayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawayo Yuusuf Raage ciidanka xoogga dalka ayaa toddobaadiyadii dhowaa xoojiyay howlgallada gobolka Shabeellada Dhexe waxaana ka go'an in gobolkaasi ay ka xoreeyaan maleeshiyaadka al-shabaab oo ku xoogan gobolkaasi Shabeellada Dhexe haddii aynu eegnana amisom ayaa baaraysa tacadiyada Kenya ee ka geysanayso gudaha gobolkaasi Gado bayaan ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee amisom ayaa lagu shaaciyay in amisom iyadoo ka jawaabaysa bayaankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya 4 bishan ay bilowday baaritaanka duqeymaha ciidanka Kenya ee ka geysanaysa gobolka Gado howlgalka ayaa hadda ku howlan aruurinta macluumaadka ku saabsan shilka la soo sheegay waxaa si dhow ula shaqeyn doona dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo dhammaan daneeyaasha kale oo khusaysa inta aan baarayno arrintan ayaa lagu yeelay bayaanka ka soo baxay amisom sidoo kale qoraalkan waxaa lagu sheegay in amisom ay waajib ay ku tahay in ay si habsami leh u fuliso howlaheeda loo igmaday ee Soomaaliya si waafaqsan asluubta iyadoo la raacayo dhammaan sharciyada caalamiga ah ee khuseeya howlgalka sidaas darteed waxaa ka go'an in ay baaraan dhammaan eedaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda ka dhanka ah ee loo geystay rayidka amisom waxay si buuxda u baaraysaa dhacdo la sheegay wixii ka soo baxa waxaa la wadaagi doonaa dhammaan daneeyaasha khuseeya ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay amisom 4 bishan June warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya yaa si adag looga cambaareeyay duqeymaha diyaaradaha dagaalka Kenya ee ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi Gado ururka Hamas oo duqeyme ka geystay dalkaasi Yemen haddii aynu anbaqaadnana saaxiibayaal gantaal balaastig ah oo kooxaha Xuutiyiintu ay ku duqeeyeen magaalo ka tirsan dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku geeriyooday 17 qof iyadoo oo sidoo kale ay ku jirtay gabar 5 jir ahayd duqeyntaasi waxay Xuutiyiintu ay la beegsadeen kaalin shidaal oo ku teelay xaafadda Rawda halkaasi oo dadkaasi ay ku dhinteen wasiirka warfaafinta dawladda Yemen Muammar ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay ugu yaraan 17 qof oo rayid ah halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen waxa ugu baaqay qaramada midoobay iyo dawladda Mareykanka inay cabaariyaan weerarkaasi oo ku sifeeyay dembiyo dagaal wakaaladda wararka ee Yemen ee Zaba waxay soo warisay in maleeshiyaadka Xuutiyiintu ay duqeyn kale ay u geysteen laba gaadiidka gurmadka ee ambalaasta oo qaadi lahaa dadkii ku dhaawacmay duqeymihii hore 3 qof ayaa ku geeriyootay duqeynta la beegsaday ambalaas kooxaha Xuutiyiinta oo dawladda Iran ay taageerto weli kama aysan hadlin duqeymaha ay ka geysteen gudaha dalkaasi Yemen halkaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ahaa iyadoo sidoo kale khasaare kala duwan oo dhaawac iyo sidoo kale laga soo warinayo gudaha khiyaari waa naga intaa warkii koobnaya baar media saaxiibayaal waxaan idin ka codsanaynaa inaad janaalka ku soo biirtaan oo aad follow tiraahdaan mahadsanidin